tan iyo abuurkii aadan iyo xaawo wixii ka dambeeyey wuxuu aadanuhu ku jiray socdaal ugu kala gooshiyo daafaha iyo dacallada dunida socdaalkaasoo noqon kara mid caalami ah mid goboli ah iyo mid deegaani ahba geedigaasoo loo adeegsan jiray gaadiid iyo guunyo kala gedisan oo ay ugu horreeyaan adeegsiga lugta kamaanka iyo geeda kaasoo uu aadanuhu uga sii gudbay doonyaha ilaa laga gaadhay adeegsiga gaadiidka casriga ee ay ka mid yihiin gawaadhida iyo dayuuraduhu haddaba gobolka daadmareer xaruntiisa oodweyne ayaa waxaa dhowaan laga daafuray shirkad cusub oo loogu magac daray socodsame taasoo shaqadeedu tahay sidii ay bulshada u siin lahayd adeeg dhankaysa socodka magaalooyinka burca iyo oodweyne ah taasoo bulshada u sahlaysa inay galaan safar raaxo badan isla markaasna ka dhib yar safaradii hore ay ku geli jireen baabuurta hore maadaama ay shirkadani adeegsanayso baabuur yaryar oo aada u raaxo badan isla markaasna ka dhaqso badan kuwii hore oday maxamed jaamac bullaale oo muddo qarni ku dhow ku noolaa magaalada oodweyne ayaa waxaanu wax ka weydiinay bal inuu nooga warramo gaadiidkii kala duwanaa ee oodweyne uga bixi jiray magaalada burco isaga oo noo sheegay gawaadhi aada u tiro badan oo dhif iyo naadir ah in maanta la arkaa oodweyne markii hore wuxuu ahaa dee magaalo yar buu ahaa wax yarna wuu ahaa dadka oo dhammina haddana isagu joogaa reer oodweyne isagu joogi jiray markaa sodcaalka gaadiidka joogaana gaadhi cusub ma jirin baabuurtii jirtay ee joogtay markaa baabuurrada waxay ahayd dagaalkii dambe adduunka ka hadhay waxaa ugu horreeyay baabuurta aan kuu sheegaye baabuurtii dagaalka adduunka ka hadhay ee foorka fiisigiska shafarlaynka aftiillaha big foorka kuwaasa ayaa ugu horreeyey baabuurkaa waxaa ku xigay yamaniga ahaa ee isagana cadan laga soo ibsaday isaguna ahaa ustunka oo isaguna buudulooxla loodhan jiray waxaa ku xigay ustunkaa kale isaguna cusbaa oo midna naafta ahaa midna butrool ahaa waxaa ku xigay gaadhigan sisoog ah oo jabaan inoogu soo horreeyey sabaaxa ku xigay niisaanka ayaa ku xigay gudoomiyaha shirkadda socodsame guruub cabdulaahi axmed cilmi oo aanu ku booqanay xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada oodweyne ayaa waxa aanu weydiinay su-aalo tiro badan oo ay ka mid yihiin sababta loo aasaasay shirkadda socodsame guruub socodsame waxaanu aasaasnay bishii afraad sideedeedii 2022 shirkaddan waxaa iskale dhalinyaro badan ku bahowday magaca sababta nagu kaliftay inanu aasaasno waxay ahayd baahi aan aragnay oo dadweynaha ay u qabeen safaradooda shaqooyinkooda si ay u gaadhaan sababtan u aasaasnay iyadoo waxa weeye safarada dadka oo iyagu kala kulmi jiray caqabado iyagoona helayn 20 hours saacado badan oo ay ku safraan oo u ahayd xilli toddobada oo kale halkan waxaa ka bixi jiray gaari buraaqabta intanen maalinta dambe toddobadeedin baa la heli jiray waxaan nimankaa bilownaanu haynaa mid xilli walba ah adeeg kasta aan u fulino dadka waanu la saahiraa waqti walba waana la helayaa kama shaqayno burco keliya waxaanu ka shaqaynaa taabiyadaha oo dhan waxaanu qabanaa shaqooyin badan si qof kastoo muraadkiisa si muraadkiisa u gaadho shirkadda iyadu waxay leedahay laba xafiis bay leedahay mid waxay ku leedahay oodweyne midna waxay ku leedahay burco dadka burco ka soo baxayana waxay yimaadaan xafiiskayga burco dadka oodweyne ka baxayana waxay yimaadaan xafiiskayga oodweyne intaasoo keliya kuma koobne waa aniga kuu sheegay waxaan kuuhi dhowr meeloodoo kale waanu ka shaqaynaa way jirta oo tuulooyinka kale ah ilaa xadka ilaa dhanka kale gobol kastoo xadka nala lena waanu gaadhnaa sax shirkaddan socodsame iyadu waxay jeceshahay in adeega dadka fuliso maaha inay socodsame burco iyo oodweyne quro kala baxdo way ka badan tahay adeegyada waxaanu haysanaa labaraan dadka u qaybinay oo ku qoran yihiin magacyada shirkadda iyo telefoonadoodu 24 saacadood meel walba waa naga helaysaan waxaanu jecelahay weliba
inaynu sii kordhino oo aan gobollada kale sida Hargeysa iyo shirkaddan Socodsame waxaa kaloo ay jeceshahay in geedhada dhowdhow sida dadka xanuunsanaya dad dhakhaatiir la soo gaarsiinayo dadka waxaan u qaybinay lambaradeeda si aan loo waayinba ma aha lambar keliya waa ilaa 10 lambar shirkaddan Socodsame waad arkaysaa walaal waxay kusoo kordhisay socdaal 24 saacadood oo qofkii u baahan aan waayin waxaan kusoo kordhinay qof kasta inuu keligii muraasado halkii awalba ay baahi badan ugu qabsan jirtay inuu gaari karaysto inuu meel qabto inuu soo daydayo inuu kale u diido waxaanu soo koobnay baahiyo dhan 24 saacadood waan helaysaa shirkadda dadka waxay ugu shaqaysaa si nidaamsan uma waayaan shirkad Socodsame ahaan waxaanu jecelahay inaan dadka u naxariisano dadka jilicsan iyo kuwa aan awoodinba inaan u naxariisano baan jecelahay qof kastana ma macaamila isaga ayaad ka dareemi doontaa markaad waraysato san u soo dhaweyno